ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa sheegay inay ka milan dhali doonaan wada hadallada Somaliland waxaanu ra'iisul wasaaruhu ku dooday inay sameyn doonaan dariiq kasta oo ay iskugu midaynayaan Somaliland iyo Soomaaliya kamiralinta wada hadalka walaalaheena gobolada waqooyi ee Soomaaliya waxa xukuumadda ka go'an inay qaado tallaabo walba oo xal u noqon kara sidii lagu heli lahaa wadajirka iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed. haddaba dawladda Somaliland ayaa arintaasi gaashaanka u daruurtay. Axmed Aadan Ismaaciil Axmed Kayse wasiir ku-xigeenka umuuraha dibadda ee Somaliland oo waraysi gaar ah telefishinka Star xafiiskiisa ku siiyay ayaa arintaasi iyo waliba sida ay u aragto dawladda Somaliland ka hadlay. cusub ee Xasan Cali Khayre wax cusub mu oranin waa waxay hore u oran jireen waxaasina waxay ka mid tahay riyo maalmeedkii ay mas'uuliyiinta ama madaxda Soomaaliya ay ku riyoon jireen ama ku hadaqi jireen marka horta runtii wax saameeyna oo ay ku yeelanayso hadalkiisaas uu yiri ma jirto saameey wasaaradda arrimaha dibadda oo runtii xukuumadda uga wakiilka Soomaaliya madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siinayo garwadaynta ka yahay waxa weeyaan hadaf baanu leenahay hadafkeyguna waxa weeyaan inaanu gaarsiino jamhuuriyadda Soomaaliland ixtiraaf ama ay ka mid noqoto beesha caalamka hada ra'iisul wasaare cusub oo aan wali fadhi barad baran oo gurgurad baran oo shalay la magacaabay laba bilo jirin wax saameyn ah ku yeelanayso inuu ka mid dhalin hadafkeyga iyo geedi socodkeyga aqoonsiga uu jirnay horta waxba ka bedelmayso hantaqana ku keeni mayso hakadin ku keeni mayso joojisna ku keeni mayso waa nin iska riyooday buu noqonayaa oo dhibta haysata ama loo magacaabay xukuumaddan uu ka yahay ra'iisul wasaaraha hawlo badan hor yaala ayaa u baahan inuu qabto inuu ku soo dabaalo nidaamkii kala dambeynta iyo nabadgelyada iyo xasiloonidii dalka ra'iisul wasaaraha laga dhigay marka isagoo socod baran oo tiisiba u qusla ama uu taagay inuu Soomaali weyn iyo ka hadlo يا Somaliland iyo midnimadu ka hadlayna ma jirto xasanna waxa malaynaya ra'iisul wasaaraha cusubna min siyaasadda uu ku cusubiyay hortii jiraba uu ku taalay taasi wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee Somaliland isagoo hadalkiisa si wata waxa uu intaasi raaciyay horta niman waxa jirta xanuun baa jira la federalites oo dadkan federaalka ku dhaca doonanka federaal doonka ay ka hadla iska riyooda saameyn ay ku yeelanaysaa ma jirto waa niman mucaarada maalintii dhawtay farmaajo la doortay Maxamed Cabdilaahi Farmaajo madaxweynaha loo doortay ay yiraahdeen markii mucaaradadii ay jirtay ama arintan beeska laga hadlayay ama arrimo kale ay jireen ayaa niman ay ku soo dhax tuurteen cadawga Somaliland oo dalka gudihiisa ku nool dabeetana Farmaajo ay geeyayo waxa soo Farmaajo dhibaatada halkan ka taalay waxba kama qaban karo dhibaato jirto tiisaba u baahan inuu dhibaato wax ka qabto isagoo dhibaato marka waxa weeyaan Farmaajo ay geeyay madaxweynaha Farmaajo Maxamed Cabdilaahi Farmaajo xukuumaddiisu saameyn kuma yeelan karo waa iraadad waa go'aan shacab waa rabitaan shacab xukuumaddu waxa ku shaqeynaysaa waa xukuumad waa rabitaanka shacabka koob 18 May 1990 Burco lagu sameeyay go'aankaas lagu qaatay in Soomaaliland noqoto ama la soo noqoto dawladnimadeedii ay barigaasi hortay ama ay kula midowday midoogii beenbeentaha ee madhalayska noqday taasi markaa ka timaado waxa dhacday 2001 May ba hadana afti dadka laga qaaday dastuurka oo 97% ay u codeeyeen inay Soomaaliland gooni isku taagto oo dastuurku kamid aha qodob kamid ah oo qodobka koowaad sheegayo waxa kamid aha waxa in tiimaantii sanadkii 2016 ay wasaaradda arrimaha dibadda samaysay ee May ahayd afti maashi petitionkii taageerada aqoonsiga raadiska uga raadinay dalka gudihiisa oo milyan iyo 720 kun oo qof saxeexeen marka rabitaan shacab bay Somaliland ku dhisan tahay oo ku jirta marka xukuumad ka dhisan Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo xukuumad Xasan Cali Khayre oo ka yahay ra'iisul wasaare iyo niman Somaliland ka soo jeedo golaha wasiirada ama ra'iisul wasaare laga dhigtay waxay ka bedelayso rabitaanka shacabka iyo go'aansitaanka marnaba ma jiriso
waana iska riyoonayaan horena hortoodna way u daareen laakiin waxaan baan malaynayaa inay ku doonaan inay deeq bixiyaasha iyo caalamka indhahooda indha salcaad tusanayaan Soomaaliland baa joogta midnimaanu doonayna dabeetana ay ku xoogsadaan ama ay ku helaan dhaqaalihii ay Soomaaliland qaybteedina ku qaataan Soomaaliya mata laakiin iyagu way og yihiin inaanay xamar dhaafsiisnayn dowladnimadoodu intii wasiir ku xigeen hadday Soomaaliland ay goosatay 5 sano ayaa hadda maraysaa Soomaaliya u mabdaa bay ku adkaysanaysaa inay tahay midnimada Soomaaliya muqaddas idinku Soomaaliland waxaad leedihiin Soomaaliland waa muqaddas gooni isku taageedu waxaana Soomaaliya tirahaa ari shuguh kama ilbaxo oo qolo waliba dhakeeda ayay inta badan ku adkaysanaysaa idinkuna dhakiina halkee loo gudbayaa adigu siyaasadda Soomaaliland in muddo dheer baad ku soo jirtay halka loo dhaafiyaa muxuu yahay horta halka waxa loo dhaafayaa waa la iska arkaya siyaasiyiinta koonfur jooga ama muqdisho jooga ama Soomaaliya jooga dee way indhaha iska tilayaan yani waxa weeyaan inay xaqiiqda waajahaan barashada taariikhda waxa loo bartaa waa ka faa'iideysi laga faa'iideysay wixii hore kugu dhacay Soomaaliland taariikh baa ku dhacday iyagoo walaalo jecel ayay iyagoo oo 5 cisho haystay gobonimadoodii iyo xorriyadoodii ayay koonfurta Soomaaliya Talyaaniga gumaysan jiray la mideeyeen 1960kii bishii July koodeedii marka inta markaad eegto midnimada ay eegto ay la sameysay way shaqeyn weyday markii hore rabitaanka shacabka iyo doonitaanka ayay ahayd inay Soomaali weyn la helo Soomaali weyn lama helin waa labadii isku tagayna waa digaarka iyo midnimadoodu way shaqeyn weyday aan waliba sharciga ku dhisnayn marka waxa u diidayay in horta gooni u soo noqoto Soomaaliland oo ay xorriyadeedii ama gobonimadeedii ama midowgii shaqeyn waayay ay ka baxdo horta wuxuu diidaya ma jirto horena way u dhacday arrin dee ugu curada maaha waa arrin uguba dalal badan oo Masar iyo Syria kamid yihiin baa ka jiray adduunka oo ku kala noqday marka Soomaaliland imika anagu waxaanu ku shaqeynaynaa war rabitaanka shacabka ummadda iyo rabitaanka shacabka iyo dadweynaha iyo ummadda reer Soomaaliland rabitaankaasana shaqeynaya 25 sanadood baa sheegaysaa haddii 30 ay noqonayso oo la ictiraafin Soomaaliland sidaas ahaanaysa waayo qofka muuminka dee gud laga bajir laga wada qaniino midnimadii la igu dilay la igu qaniinay la igu garaacay la igu xasuuqay inaan mar dambe la igu yeero riyaaq dambe mid suurtagelaysa maaha midda kale dadka imika joogay ugu badan dhalinyarada waa 70% 25 bay betri oo u malaynaya inay 75 yihiin 25 ka sano imika 26 baynu noqonaynaa de Soomaaliland bi jiray anu Soomaaliland jiritaankeedu ku indha garata ku dilacsadeen Soomaaliyana xana ka garan maayaan nimankan joogay meesha inta laba nin ku magacaabaan iyo ra'iisul wasaare ku xigeen ama xukuumad wasiir ku siiyaan deemaha macnaheedu way ku imanaysaa marka iyagu hadii ku adkaysanayaan way riyoonayaan laakiin tan rabitaanka shacabka ayay xukuumadda Soomaaliland ku shaqeynaysa wasaaradda arrimaha dibadda ku shaqeynaysa iyagana waxaan oranayaa walaalaha iyaga Soomaaliyeed horta lama jecelin dhibo waxaan u jecelnahay inay nabadgeliyo iyo xasilooni ku waaraan laakiin dhibaatada haysata ama ay xal xasilooni darada ay ka dhalin kari waayeen ama ay ku soo dabaali kari waayeen caasimadda xitaa Soomaaliya ayay markaasi waxay uga baxsanayaan ama ay balaayada ama dhibaatada haysata Allah ka dulqaado ay uga haysanayaan waxa weeyaan inay midnimo Soomaaliyeed inay dhibaatada markaa kaga baxayaan marka dee midnimada Soomaaliyeed way og yihiin iyaduna inay suurto galeen way og yihiin inay Soomaaliland soo noqonaynin way og yihiin 26 sanadood bay ilmiga jirnay inaan mar dambe aanaynu ku noqonaynin waxa soo dhan way og yihiin laakiin iyaga waxa u taala inay dadkooda iyo dalkooda wax u qabtaan oo ay wax noqdaan 25 sanadood bay 30 sanadood ay noqonaysaa Soomaaliland saas ahaanaysa أحمد آدن إسماعيل أحمد كيسي وحوسي كارا ولهالي مدحوينها دلك الصومالية هول بدن ما وطالع أنا واحد كلا أورال ما يالله وفضل يهركا لكن واحد أورال لها إنان وقت إسكاقل منين صومالي النمو يوم النمو صوماليات أو مرتب بدنا إنان وقت إسكاقل منين حولا بدن بويالة حولها سوين ولا بتجريه كسوب طبعا حكومة دي سواء شقيسة oo dalkii Soomaaliya loo oran jiray ay maamulkiisu u gaaro ayay isaga u fiican Somaliland iyo Soomaaliya wada hadaladeeda haday daacad ka yihiin tii waan soo dhaweynaa iyadana uu halkii ka sii wado madaxweynaha Soomaaliya marka waxaan leeyahay tii Allah igu fududeeyay xilka laakiin Somaliland way tashatay hadaynu saan u kala baxno oo si sharaf leh u kala baxno
walaaltinimo kala baxayno xiriirkeena mustaqbalka sheekaysana welcome wada hadalladin halkiisa laakiin marnaba ha ku riyoonine waqtina iskaga lumaysi madaxweynayaasha in la carto soo bilow uu iska tagay Cabdiqaasim Saan Cabdilaahi uu iska tagay Shariif uu iska tagay Xasan Sheekh uu iska tagay isna uu iska tagay hadii waqtiga iskaga lumiyoon marka waqtiga iska lumina wax un baad eegtaan fashilkii madaxweynayaasha hore ku dhacay adnaanu kugu dhicin fashilka ugu weyn ku dhacay waxa weeyaan midnimo iska hadii jireen iyo riyooyin ay riyoon jireen marka waxaan qoranahay ka toosriyada sidii madaxweynayaasha ka horeeyay riyoonin Soomaaliya iyo Somaliland dad walaalaabay noqonayaan oo darisa إن شاء الله أنت سنسجنوا. باتري كوسار محمود تلفزيون عالمي ستار هرجيسا.